barnaamijka dabagalka degmooyinka waxaan isbuucan ku dul istaagi doonaa degmada Kaaraan oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee gobolka Banaadir. degmada Kaaraan waxaa degmo ahaan loo aqoonsaday 70meeyadii waxa ay qayb ahaanna ku taalaa afarta qaybood ee gobolka Banaadir qaybtiisa bari. waxay xuduud la leedahay afar degmo oo kala ah Yaaqshid, Hiliwaa, Shibis, Cabdicasiis iyo degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. degmada Kaaraan waxa ay ka kooban tahay afar waaxood oo kala ah Wajeer, Nageyle, Faanoole iyo Djibouti, waxaana jirta wax lagu magacaabo Jamhuuriya oo dhawaangal ah. goobaha caanka ah ee degmada waxaa ka mid ah Sarta Xaawa Casir, Xaliima Heyti, Shaleema Liibaan, Hotel Lafweyn, Isbitaal Kaysaney, Masaajidka Xaaji Culumo, Masaajidka Sheekh Axmed Idriis, Iskuul Godey, Masaajidka Sheekh Axmed Xaaji, Iskuulka Maxamuud Axmed Cali, garoonka kubadda cagta ee Qoob Dooro, Masaajidka Xabatafad, Sarta Jamhuuriya, Shaleema Cali Saney, Iskuul Al-Shacab iyo Iskuulka Macaad bin Jabal. xaafadaha ugu caansan ee degmada waxaa ka mid ah xaafadda Buulo Racay, Al-Shareeca, Mariino, Buurka Diikow, Argentiin, Jamhuuriya, Xaaji Culumo, Buulo Maaxaay, Ceelka Maxaadey, xaafadda Siisi iyo xaafadda Cali Jiilaal. waa degmo baaxad weyn kana mid ah degmooyinka fida ee gobolka Banaadir, waxayna caan ku tahay halhayska ah Karbuuna mugdi waa u kaa, Kaaraanna dadka waa u kayd. degmada waxaa mara jidka weyn ee wadnaha, waxayna leedahay jidad kale sida Miniraayo oo kala qaybiya Kaaraan iyo Cabdicasiis, jidka Kaaraan, jidka Allamagan iyo jidka Xaaji Kadare oo iyada gaar u ah. isgoysyada degmada waxaa ka mid ah isgoyska Jamhuuriya, isgoyska Jiirawac Buudhan, isgoyska Mariina, isgoyska Sanca iyo isgoyska Fagax. degmadu waxay leedahay 5 MCH oo kala ah Wajeer, Xaawa Casir, Djibouti, Jamhuuriya iyo Argentiin, mana shaqeeyaan intooda badan, halka kuwa shaqeeya oo qaarkoodna ay gacanta ku hayaan hay-ado aan adeeg wanaagsan laga siinin dadka ku nool degmada Kaaraan. degmada Kaaraan waxaa ku yaala 3 isbitaal oo 2 dad gaar ah ay leeyihiin, halka midka kalena uu yahay isbitaalka weyn ee Kaysaney. waxaa gacanta ku haya hay-ado, waxaana halkaasi loogu adeegaa shacabka ku nool degmada Kaaraan iyo guud ahaan gobolka Banaadir. suuqyada degmada waxaa ka mid ah suuqa Kaaraan, suuqa Argentiin, suuqa Sanca, suuqa Cali Geedi iyo suuqa lagu iibiyo xoolaha nool ee Xarka Dheere. gudoomiyaha degmada waa Abshir Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Abshir Kaaraan. wuxuu horey u soo qabtay xilka gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Hiliwaa. ka hor Hiliwaa waxa uu ahaa gacanyaraha Muuse Suudi Yalaxow xilligii hogaamiye kooxeedyada, wuxuuna darawal ka ahaa tiknikadii loo yaqaanay waxaa tahaa laga yahay oo xoog sheegadka caanka ku ahaa. Abshir waa dhammo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, wuxuuna ka mid ahaa mooryaantii la qarameeyey islamarkaana laga safay darajooyinka. wuxuu asalkiisii hore ahaa madaxii isbaarada deegaanka Caliyaale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. kabtankan isku qalda oo adeegida iyo mooryaamaynta dadka uu gudoomiyaha u yahay ayaa maamulkii iyo adeegyadii degmada oo uu ugu horeeyo tiim baraha waxa uu ku wataa gaari cabdibilo ah oo uu darawal ka yahay wiilkiisa. wuxuuna qof walba oo degmada warqad uga baahda ku qasban yahay in uu arko ama ilaashado midabka iyo nooca gaariga uu saaran yahay gudoomiyaha ee tiim baraha lagu dul sido. wuxuu ka mid yahay Abshir Kaaraan tiro gudoomiyaal degmo oo leh gawaarida dagaalka ee loo yaqaan cabdibilaha, waxaana u saaran ciidan military ah oo isaga ka amar qaata, isla markaana ku hubeysan qoryaha culus ee Soomaalidu u taqaano dabajeexa iyo dhashiikaha. Abshir oo in muddaha ku noolaa dalka isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa 2014 dib ugu soo laabtay Soomaaliya, waxaana gudoomiye ku-xigeenka degmada Hiliwaa u magacaabay duqii hore ee Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab. kadib Allah u naxariistay injineer Yurisow ayaa gudoomiyaha degmada Kaaraan u magacaabay. Abshir waxa uu qaab xooga uga degan yahay degmada uu gudoomiyaha ka yahay ee Kaaraan, guri ay leeyihiin dad shacab ah, wuxuuna degmada ka samaystay koox burcad dhuleed ah oo ay isla baadaan dhulka degmada, waxaana kooxdaas gudoomiye u ah nin magaciisa lagu soo koobay Joore. gudoomiyahan cabashada ay ka yihiin dadka ku nool degmada uu gudoomiyaha ka yahay ayaa sidoo kale kala diray kooxdii fanka ee degmada oo lagu magacaabi jiray Bariga Banaadir, waxaana kooxdaas aasaasay gudoomiyihii isaga ka horeeyay ee Axmed Yalaxow. wuxuu sidoo kale kala diray kooxdii kubadda cagta ee degmada Kaaraan oo uga qayb gali jirtay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir, isagoo koox cusub ka keensaday degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wuxuu samaystay dalaal u iibgeeya macaawinada degmada la keeno ee loogu talagalay dadka masaakiinta ah. sida uu dabagalku ogaaday, waxaa hawshaas u qaabilsan nin lagu magacaabo Bashiir Sheekh Cali Suufi oo ku xiran ganacsatada suuq Bacaad. gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada waa Liibaan Geedi,
waxa uu degan yahay degmada Dharkiinley oo markiisii horeba uu uga yimid degmada Kaaraan. Deeqo Shiiqo Xasan waa gudoomiye ku-xigeenka amniga wuxuu degan yahay degmada Kaaraan. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada waa haweeney lagu magacaabo Sawda Maxamed Gaabow waxa ay ka tirsan tahay xoogga wadaniyiinta waana gabar toos ugu xiran taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin 2 toddobaad ka hor ayuu dabagalka ogaaday inay soo degtay degmada Kaaraan. Sawda iyo Abshir ayaa ah labada ugu saameynta badan ee degmada. dadka qaar ayaa dabagalka la wadaagay in inta kale ee maamulka ah ay magacaaban yihiin laakiin shaqadooda ay si awood u qabtaan labadaasi mas'uul ee kala ah Abshir iyo Sawda. Sawdana sidoo kale waxay soo degtay degmada si ay u sii xoojisay xiriirka kala dhaxeeya gudoomiyaha degmada. nadaafadda degmada ayaa ah mid aad u liidata wuxuuna Abshir shaqo joojin ku sameeyay dhalinyaro ku shaqaysata mootooyin oo degmada ka qaadi jiray qashinka. wuxuuna nadaafadda degmada ku wareejiyay kambani ay leedahay mid ka mid ah xaasaskiisa. waxa ugu dambeyn xarig iyo jirdil kadib kambaniga ku biiray wiilashii dhalinyarada ahaa ee degmada ka qaadi jiray qashinka waxaana hadda dayacan nadaafadda guud ee degmada Kaaraan. degmada Kaaraan weli lagama hirgelin interlooga jidcadayaasha oo inta badan degmooyinka kale ee gobolka Banaadir la gaarsiiyay. waxaa dansan dhammaan leerarka cadceedda ku shaqeeya ee jidadka degmada. waxaa degmada ka jira dib u dhac aad u weyn marka loo barbardhigo degmooyinka kale ee dariska la ah ama gobolka Banaadir degmooyinka ah. xaafadaha qaar ee degmada waxaa qaati laga taagan yahay qashinka magaalada laga qaado oo lagu daadiyo. dadka degan xaafadda Gubadley ee degmada Kaaraan ayaa uga guuray halkaasi qashinka lagu soo daadiyo oo aan lagu noolaan karin agtiisa aawadii. gudoomiyaha degmada ayaa waqtigiisa ugu badan ku baxsha dhulalka la isku haysto ee degmada, kuwa la kala iibsanayo iyo kuwa aan sharciga lahayn ee u baahan in sharci loo sameeyo, taas oo dadka deegaanka qaarkood ay dabagalka u sheegeen in uu ka qaato lacago aad u fara badan. tacadiyada kale ee degmada Kaaraan ka jira waxaa ka mid ah in dad shacab ah oo aan la wargelin laga dudumiyo guryahooda. wariye ayaa dhiiraday oo ka soo warramay, laakiin halkaa marka ay marayso ayaa gudoomiyihii degmada Abshir Kaaraan waxa uu la hadlay maamulka telefishinka Shabeelle oo uu wariyuhu ka tirsanaa. markaas kadib waxaa dhacday in wariyihii uu amray in shaqada laga joojiyo. maamulkii oo aan dhinacyada fiirin ayaa durbadiiba shaqo joojin ku sameeyay, shaqadiina ka eriyay wariye lagu magacaabo Ismaaciil Turki oo dadka shacabka u hadlay in guryahooda laga dudumiyo aysan xaq u lahayn. taasi waxa ay ka dhigan tahay in maamulka degmada Kaaraan halkii la rabay inuu ku mashquulo gudaha degmada iyo wax ka qabashada guud ahaan cabashooyinka iyo horumarada jira in laga shaqeeyo uu ku mashquulsan yahay faafreebidda warbaahinta madaxa bannaan. sidaas daraadeedna codkooda lagu eriyayo wariyaasha. gudoomiye ma astahliya Kaaraan midka kaleeto waxa waa Cumar Firish wax soo dir waa gobolkan noo soo dirshay degmada moogiya Kaaraan wax noo ma galo libaashadana wax noo ma galo tasarrufta noo saarayiin ayaa nagala kordheeyo guriga cagaf nagula kordheeyay waxaa nagula qabtay qoryo cadaalad lama samaynin. Cumar Firish ka dooni mayno mana rabno waxa wado shaqana ku malin qabiilowna sameeyay qabiil maasha Allah ma baano. canshuurta suuqyada degmada ka soo xaroota waxaa ku heshiiyay taliyaha booliska degmada Liibaan Shidare, askarta soo ururisa iyo gudoomiyaha degmada. canshuurta guryaha degmada ayay ciidanku ka qaadaan lacag ka badan midda laga rabo, iyagoona boonada ku qora lacagta ay ka qaadeen dadka degmada mid ka yar. waana qorshe uu og yahay gudoomiyaha degmada ee Abshir Kaaraan. taliyaha booliska degmadu waa Liibaan Shidane wuxuuna ka mid yahay tiro taliyayaal booliis degmo oo laga safay darajo aysan ku mutaysan shaqo, khibrad iyo tababar. wuxuuna degan yahay degmada Yaaqshid. wiilkan oo xiriirka adag ee ku dhisan aan wada qaraabano uu kala dhaxeeyo gudoomiyaha degmada Kaaraan ayaan waxba ka ogeyn amniga degmada uu mas'uulka ka yahay, wuxuuna ka fiirsadaa danihiisa gaarka ah. taliya Liibaan iyo gudoomiye Abshir ayaa xeebta degmada waxay ka soo dejiyaan qaad aysan ogeyn dawladda inteeda kale, waxayna ku qaataan soo xareynta qaadkaasi qandaraas lacageed oo aad u fara badan, waxayna ilaaliyaan amnigiisa ilaa uu galo magaalada Muqdisho qaybaheeda kala duwan. amniga degmada ayaa ah mid liita waxaana la isku dilaa aana qabiil oo mararka qaar ay qayb ka qaataan sida ay dadka deegaanku sheegeen ilaalada gudoomiyaha degmada Kaaraan. dhowaan ayay ahayd markii uu askari ilaalo u ah Abshir oo ah gudoomiyaha degmada uu dilay wiil isagu uu dhalay kadib muran soo kala dhex galay. maalin cad ayay askar ku labisan dariiska ciidanka dawladdu waxa ay 2 qof oo shacab ku dileen suuqa degmada Kaaraan. dabagalka ayaa soo ogaaday in dilkaasi uu ahaa aana qabiil, taasoo muujinaysa heerka amni xumo qayb ka mid ah ee degmada Kaaraan ka taagan. maanta degmada Kaaraan suuqa degmada Kaaraan waxa lagu dilay Jimcaale Nuur Gacal oo ah ganacsada oo suuqa dhexdiisa niis ganacsiga kule iyo gabadh wax ka gadahaysay
oo iyadana deegaanka ah ayaa lagu dilay baasaa lagu furay waxaana ku furay 2 askari oo ka tirsan ciidanka ilaalada u ah Abshir Kaaraan gudoomiyaha degmada Kaaraan ninkaasi oo weliba baabuurka isagoo saaran suuqa inta geeyay ku dejiyay 2 nin ee ka soo tagay ay waxay tageen meesha miiska uu ninka ku lahay ma fiirin wax kale asaga iyo gabadhii wax ka gadaysa baasay ku wadastan hubka ku jira gacanta maamulka iyo taliska booliiska degmada waxaa ka badan kan gacanta ugu jira maleeshiyada waxaa celcelis ahaan isbuuciiba lagu diraa degmada Kaaraan 4 ama 5 qof xogo hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in maamulka gobolka Banaadir uu hogaamiye gudoomiye Cumar Finish ay ka dharagsan yihiin waxa ka socda degmada Kaaraan balse aysan awoodin wax ka qabashada dhibka haysta dadka degmada Kaaraan dhalinyarada degmada qaarkood oo la soo xiriiray barnaamijka dabagalka ayaa u sheegay in degmadu ay u baahan tahay hoggaan u adeega bulshada suga amniga degmadana ka dabageeya asaageeda marka loo eego degmooyinka kale ee gobolka Banaadir dib u dhaca Kaaraan ka muuqda iyo horumarada ay hiigsanayaan degmooyinka kale ee la midka ah Kaaraan dadka ku dhaqan degmada Kaaraan waxa isugu darsamay adeegii bulshada oo aan jirin amni oo aysan haysan mugdiga habeenkii ah canshuurtii oo laga qaado maamulka degmada oo mooryaannimo kula dhaqma ciidan wata dariiska ciidanka dawladda oo dadka shacabka isaga dhex dila degmada Kaaraan MCA-jadii degmada oo aan shaqo fiican u qaban dadka degmada go'aanada degmada oo gacanta ugu jira hal qoys isboortiskii degmadu caanka ku ahayd oo fadhiid noqday garoonkii qoob dooro oo uu ku socdo dhismo aan dhammaad lahayn jidadkii degmada oo qashin buux dhaafiyay dhul boob baahsan oo ka socda degmada iyo maamulka gobolka Banaadir oo intaas oo dhan ka warqaba fiirsanayana isugeynta tacadiga guud ee ka jira degmada Kaaraan ee ciidamadu geysanayaan maamulkana raali ka yahay gobolka Banaadirna isha ka fiirsanayo ayaa dadka degmada baahidooda koobaad waxa ay tahay uuna ku talinayaa barnaamijkan dabagalka in degmadu ay hesho isbedel maamul si looga baxo dhibaatooyinka taagan dadka ku nool degmada Kaaraan ay u helaan adeeg dawladeed oo aan lagu sidan cabdibilaha lagu waardiyeeyo gudoomiyaha degmada ee Abshir Kaaraan Canaadan Muumin barnaamijka dabagalka